soo dhawaada saaxiibayaal waa wiilkeena Siesta Films filimkeena maanta wuxuu ku bilowmayaa askari howlgaba oo lagu magacaabo James Wright kaas oo xilligan sikadiisa u dhaxgalay dugsi lagu barto martial artska oo ku yaala dalka Japan ujeedkiisuna waa inuu helo cadawgiisii hore laakiin bilowgaba arrimuhu way cakirmeen ninka uu baadigoobayo waa aabaha dhalay macalinkan dugsigan hadda gacanta ku haya macalinkan waa nin sharaf badan oo aan aqbali karin in qoyskiisa la liido ama sharaftooda wax loo dhimo markii uu maqlay in aabihii sharaf darre loo geystay wuxuu ardaydiisa ku amray in ninkan Ameerikaanka isla markiiba la dilo laakiin qorshihiisii uu fashilmay James ma ahan askari caadi ah waa dagaalyahan aad u xirfad badan oo halistiisu sareyso ilbiriqsiyo ayna ku qaadatay inuu dhulka wada dhigo dhammaan raggii soo weeraray macalinkii wuxuu fahmay in ninkan oo aan ahayn qof caadi ah wuxuu joojiyay raggiisii wuxuuna weydiiyey maxaad halkan u timid jawaabta ka hor sheekadu waxay dib inoogu celinaysaa sanadkii 1942 ciidamada Japan ayaa xilligaas dhisay xero loo yaqaano socodkii geerida xeradani waxay qayb ka ahayd qorshe ay ku qabsadeen koonfur bari Aasiya intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku xilligan James wuxuu dul fadhiyay saaxiibkii oo dhintay kaas oo gacmihiisa ku aasay subaxdii xigtay ciidamada Japan ayaa keenta ka baadigoobayay cadowga James oo dhuumanaya ayaa dhagax ku tuuray si uu dareenkooda u jeediyo kadibna weerar gaadmo ah ayuu ku qaaday askari ayuu dilay mina ayuuna qarxiyay in muddo ah wuxuu islahaa waad guulaysanaysaa laakiin keenta waxaa ku jira ciidan ka badan inta uu filayay wuu cararay isagoo keenta dhex maraya balse ugu dambeyntii waa la qabtay taliyihii ciidanka ayaa yiri hadilina nolosha ku qabta oo xerada geeya markii albaabka laga soo geliyay qof walba dareenkiisa ayuu soo jiitay korneylkii xerada haystay ayaa markiiba gartay inuu ninkan nin caadi ahayn wuxuu ahaan jiray taliye ka tirsan ciidamada cirka ee Ingiriiska si aanay maxaabiista kale ugu dhiiranin inay arkaan sarkaal sare oo la soo qabtay korneylku wuxuu amar ku bixiyay in si qarsoodi loo dilo James markii hore waxay u muuqatay in James isdhiibay laakiin markii seefta ku dhawaatay in qoorta laga gooyo ayuu isbadbaadiyay isagoo isticmaalaya farsamooyin cajiib ah wuxuu dilay 3 waardiye kadibna keenta ayuu u baxsaday wax yar kadib wuxuu helay hadhaadiga diyaarad burburtay laakiin halkaas kumuusan lagaan karin waqti aad u dheer isagoo cararaya ayuu ku dhacay dabin dhulka ku aasnaa mar labaad ayaana la soo qabtay oo xerada dib loogu soo celiyay korneylka ayaa silsiladiisii ka jaray wuxuuna James ka helay bilad geesinimo oo dagaalka lagu siiyay korneylkii oo la dhacsan geesinimadiisa ayaa yiri hadilina hadda ee geeyay qaybta dhulka hoostiisa ah ha ku nastee laakiin nasashadaasi ma ahayn mid raagtay subaxdii xigtay waxay qorsheeyeen dagaal kale oo dhimashadiisu caddahay habeenkii askari ayaa soo jeediyay in James la dilo isagoo hurda laakiin korneylka ayaa diiday midaas wuxuu rabay xerada oo dhami inay aragto ciqaabta cidii amarkiisa diida James waxaa lagu xiray qol yar oo ay ku jiraan maxaabiis kale maxaabiistaas oo badankooda Ameerikaan yihiin mid ka mid ah ayaa magaciisa ku sheegay Gabriel waxayna weydiiyeen in ciidamada Ingiriisku ay u imaanayaan badbaadin laakiin James uu aamusay waxaa la sheegay in halkaas ay hore ugu jireen maxaabiis u dhashay Vietnam balse intaan ciidanku soo gaadhin waa la wada laayay James uu aamusay laakiin markii kooxdiisu timid in diyaaradoodii la soo riday balse isagu uu ka badbaaday ayaa James wuxuu u sheegay in duuliyayaashii aagan joogay dhammaantood la laayay taasoo macnaheedu tahay inaysan jirin cid badbaadinaysa xabsigan Japan shuruucdiisu aad bay u adag tahay haddana James wuxuu go'aansaday inuusan isdhiibin oo uu isku dayay inuu baxsado laakiin maxaabiistii kale ayaa u sheegay inaanu isku dayin maadaama ay xeradu ku taalo jasiirad dhinac walba laga ilaaliyo xeradan waxaa loo sameeyay in lagu jabiyo ragga ugu adag waxaa jira xeryo kale oo tan ka sarreeya taasoo la yiraahdo socodka geerida halkaas oo tagtay aanay dib uga soo noqon subaxdii xigtay xeradu waxay ku waabarisatay qaylo ciidamo ayaa saf ugu jiray tababar waxaana la dareemayay anshax adag isla waqtigaas waxaa la gaaray xilligii ciqaabta James gacmaha ayaa laga xiray waxaana la geeyay bartamaha garoonka balse intaan la gaadhin korneylka ayaa amray in xariga laga taro oo meesha laga kaxeeyo korneylku wuxuu James u keydinayay qorshe ka weyn intaa kadib laba maxbuus oo cunto xaday ayay ciqaabtoodu noqotay inay la dagaalamaan dagaalyahanka ugu halista badan xerada dagaalyahankaasi wuxuu u ekaa mid cabsi badan jirkiisuna aad ayuu u dhisnaa feedharkiisuna aad bay u awood badnaayeen oo xitaa maxaabiista kuwooda ugu awoodda badan bay ka baqan jireen tani waxay ahayd cashar loo dhigayo cidii wax ka xadda ciidamada Japan dagaalkii kadib dadku waxay sugayeen dhimashadii James cidina uma maleynayn inuu ka badbaadiyo ninkaas bahalka ah laakiin ilbiriqsiyo gudahood James wuxuu ninkii weynaa ku dilay 2 weerar oo kaliya korneylkii isagoo aan hadlin ayuu teendhada galay askari ayuu u soo jeediyay in James la dilo laakiin korneylku wuxuu u hayay xushmad qarsoon oo ku aadan awowgiisa wuxuuna u ballan qaaday in waqtiga James uu imaan doono James wuxuu la kulmay Captain Collins kaas oo aad ula
yaabay qaabka uu u dagaalamayo. maxaabiistii ayaa isku dayay inay yara dabaaldegaan iyagoo cabaya khamri macmala, laakiin farxadoodii waxaa soo dhex galay ciidamada Japan iyagoona James u kaxeeyay teendhada korneylka. teendhada dhexdeeda waxaa joogay kalkaaliso dhalinyaro ah. James iyo gabadhu dusha ayay iska daalacdeen cabbaar. korneylku wuxuu James u sheegay inaanu ugu yeedhin ammaan, balse uu gartay qaabka uu u dagaalamayay inuu yahay qaab laga mamnuucay Japan. wuxuu kaloo ogaaday in dilada James watay ay tahay mid aabihii lahaa. korneylku wuxuu u sheegay inuu aabihii ahaa askari. kadib seeftii sarkaalkiisa dhintay ayuu soo saaray, wuxuuna James wejiga kaga dhigay calaamad yar oo dhaawaca, isagoona amray in la kaxeeyo. tani waxay ka dhigan tahay in James beri la dili doono. subaxdii xigtay korneylku wuxuu soo agaasimay weerar kale, wuxuuna ogaa in James hal nin ka adkaan karo. sidaas darteed wuxuu soo diray saddexdiisa askari ee ugu awoodda badan, laakiin James wuxuu la dagaalamay sidii duufaan oo kale. daqiiqad gudaheed ayuuna saddexdii nin dhulka ku dhigay. wuu dili karay laakiin wuu ka istaagay. korneylkii oo aamusnaan ku galay teendhadiisa ayaa amar ku bixiyey in saddexdii nin ee James daayay gebi ahaantoodba la laayo, si dadka loo tuso inaanay naxariisi jirin. James wuxuu asxaabtiisa u sheegay in askartu aan ahayn fulay, balse ay amarka u qaadanayaan. wax yar kadib waxaa la maqlay rasaas lagu dilay askartii la badbaadiyey. dhaawacyada Gabriel iyo Collins ayaa sii xumaanayay, waxaana laga cabsi qabay in loo diro xerada dhimashada. James wuxuu dejiyey qorshe halisa. wuxuu arkay raadiyo saaran munaaradda. haddii uu gaadho wuxuu la xidhiidhi karaa ciidamada Ingiriiska. qorshuhu wuxuu ahaa in maxaabiistu sameeyaan buuq iyo shaqaaqo si dareenkooda loo jeediyo. qayle iyo buuq ayaa bilowday. ilaaladii oo dhanna waxay aadeen dhanka buuqa. James wuxuu fuulay munaaradda, raadiyihiina wuu xaday, wuxuuna ku dhuntay jawaanada gadaashooda. kalkaalisadii ayaa si lama filaan u aragtay, balse way qarisay. askari ayaa gabadhii dhibaateeyey oo dharbaaxay, laakiin gabadhu James may sheegin. James raadiyaha ayuu qolkiisa ku qariyey. waxay go'aansadeen inay hadda signal dirin, balse ay dhageystaan oo keliya. laakiin subaxdii dambe khatar ayaa timid. korneylka ayaa shir degdega iskugu yeedhay ciidamada si loo ogaado ciddii isku dayday baxsashada. James wuxuu la hadlay maxbuus aad u cabsanaya, kaasoo u sheegay inuu qotigad qarsoodiya oo uu ku baxsan rabo. James wuxuu go'aansaday inuu isticmaalo godkaas. habeenkii ayuu sameeyey qaabo eeg inuu hurdo, wuxuuna si dhuumasho ah uga baxay godkii iyadoo ninkii gaarka ahaa uu caawiyey. James wuxuu gaadhay xeebta, raadiyihiina wuxuu ka maqlay koodh sira, koodhkaas oo ay isticmaalaan ciidamada Maraykanka, taasoo ka dhigan inay agagaarka joogaan. wuxuu helay diyaarad burburtay iyo bir uu u baahnaa. qolkiisii ayuuna si qarsoodiya ugu laabtay. intaa kadib waxaan ku xasuusinayaa inaad like saarto muuqaalka ood hilmaamtay inaad like saarto channelkana aad subscribe tiraahdo ood nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay. waxaana kaa codsanayaa inaad sii share garayso muuqaalka si uu dad badan u gaadho. haddii aynu u soo noqono filimkeenna, subaxdii James wuxuu asxaabtiisa u sheegay wixii uu soo arkay. luuqadda Navajo ee raadiyaha laga maqlay waxay caddaynaysaa in Maraykanku soo dhow yahay. wuxuu kaloo u sheegay inay keenta taal diyaarad glider ah, kuwa aan matoorka lahayn. haddii ay ku xidhan diyaarad dul maraysana way ku baxsan karaan hawada. qorshuhu waa weli, laakiin waa rajada keliya ee haystaan. dadkii waxay diyaar u noqdeen inay caawiyaan, balse ciidamada ayaa yimid oo James u kaxeeyey korneylka. korneylku wuxuu maqlay luuqadda Navajo, wuxuuna rabay in James u turjumo. James uu diiday, isagoo sheegay inuusan saaxiibadiis khiyaami doonin. korneylkii wuu cadhooday, wuxuuna amray in James la jir dilo ilaa uu jilbaha dhiganayo. James waa la garaacay, laakiin markii xadhigga laga furay ayuu askari si xun u dilay, taasoo korneylka ku noqotay sharaf dhac. korneylkii oo xanaaqsan ayaa shaqaale badan laayay. Jamesna miirkii ayaa ka tegey. James wuxuu soo toosay isagoo isbitaalka xerada jooga. kalkaalisadii Teresa ayaana daweynaysay. wuxuu arkay korneylka oo nin dilaya si uu dadka u cabsi geliyo. James wuxuu fahmay in korneylku aan rabin inuu si dhuumasho ah u dilo, balse uu rabo dagaal foolka fool ah oo sharaf leh. James wuxuu u sheegay korneylka, haddii kuwani ahaayeen askartaadii ugu fiicnayd, anigu gurigeyga ayaan ku laabanayaa. korneylku wuxuu ku goodiyey in haddii Japan laga adkaado uu dhammaantood dili doono. diyaaradaha Maraykanka ayaa waraaqad digniina soo daadiyey, iyagoo sheegay in cadaalad la marsiin doono ciddii maxaabiista dhibaataysa. laakiin James wuxuu ogaa in korneyl Ito aanu isdhiibi doonin. habeenkii Gabriel ayaa aaday keynta si uu u soo eego diyaaradda. soo laabashadii isaga iyo James waxaa arkay askari. dagaal kadib askarigii way dileen. sarkaal kale ayaa qabtay, balse wuu iska fasaxay. haddana dib ayuu ka sheegay in askari la dilay. xeradii waa la baadhay. James ayaana qirtay inuu isagu dilay askariga si uu saaxiibadiis u badbaadiyo. korneylka ayaa ka dalbaday inuu farsamadiisa ku tijaabiyo maxbuus kale. maxbuuskii wuu diiday, waana la toogtay. Captain Collins ayaa lagu khasbay inuu la dagaalamo askari, wuuna ka guulaystay. James ayaa isna korneyl
korneylka ku yidhi kaalay adigu ila dagaalam haddii aad geesi tahay. korneylku wuu diiday wuxuuna garaacay James. habeenkaas James iyo Gabriel way baxsadeen. qorshahoodu wuxuu ahaa inay xadaan gantaal si ay calaamad u diraan kadibna ay diyaaradda bilaa motoorka ku baxsadaan. markii ay xerada ku soo laabteen qolkoodii waa eber. ciidamo ayaa gudaha u galay oo suuxiyey waxayna ku soo tooseen diyaaradaha Mareykanka oo duqeynaya jasiiradda. weerarkii ayaa bilowday. Cornel Ito wuxuu waayay xakamayntii wuxuuna bilaabay inuu laayo cid kasta oo ka hor timaada askari iyo maxbuusba. James iyo kooxdiisu waxay u baahdeen inay gaaraan munaaradda si ay signal u diraan. kalkaalisadii ayaa caawisay iyadoona askarigii ka mashquulisay. Gabriel ayaa signal diray xeradiina waxay noqotay goob dagaal. maxaabiistii ayaa hubkii qaatay oo la dagaalamay ciidamada Japan. James qori ayuu qaatay wuuna dagaalamay. Captain Collins wuxuu ka adkaaday sarkaalkii dhibi jiray laakiin dhabarka ayaa laga toogtay wuuna dhintay. James oo aad u xanaaqsan ayaa toos u aaday teendhada korneylka. dagaal adag oo seef la isku adeegsaday ayaa dhex maray James iyo Cornel Ito. ugu dambeyntiina James ayaa guuleystay laakiin wuu diiday inuu dilo. Gabriel ayaa James jiiday si ay u baxsadaan. askari Japan ayaa isku dayay inuu dhabarka ka toogto James laakiin Cornel Ito ayaa badbaadiyay James isagoo muujinaya xushmad dagaalyahanimo. James iyo Gabriel waxay gaadheen diyaaraddii gliderka. diyaaradaha Mareykanka ayaana laayay askartii Japan ee ku harsanaa keynta. Jamesna wuxuu xadhiggii ku xidhay diyaaraddii gliderka. diyaarad Mareykanka oo dushiisa maraysay ayaa qaadatay xadhiggii wayna la duushay. jasiiraddiina way ka fogaadeen. James wuxuu ballan qaaday inuu soo laaban doono si uu kuwa kale u badbaadiyo. sannado badan kadib ballanqaadkaas iyo xushmaddaas ayaa James dib ugu soo celisay Japan. dugsigii aan bilowga ku aragnay macalinka cusub wuxuu u sheegay in aabihii Cornel Ito iyo macalinkiisa hore ay dhinteen sanad ka hor balse ay uga warameen ninka shisheeyaha ah ee farsamada cajiibka leh. macalinku wuxuu James u dhiibay sanduuq ay ku jiraan biladii aabihii iyo silsiladii. waa laba nin oo waqti ka hor col ahaa balse hadda ku midaysan nabad. haddii aad ka heshay muuqaalka waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto muuqaalka channelkana aad subscribe tiraahdo oo nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay. halkan waxaan ku soo gudbinaa filimo aad u xiiso badan oo ku cajabin doona. haddii aad rabto filimka magaciisana hoos ayaan idiin soo dhigay. waxaana inoo ballanaa muuqaalkan xiga.